wafdigan oo isugu jiray heer federaal iyo heer deegaan oo horkacay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa magaalada Goday xarunta gobolka Shabeelle ka qaatay diyaaradaha nooca qumaatiga ka ceel loo yaqaan helicopterka garoonka diyaaradaha ee magaalada Goday iyagoo ka degay deegaanka Nagaade weyne ka tirsan degmada Dhooboweyne gobolka Qorraxay halkaas oo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar oo ku dhagax dhigay mid kamid ah 96 biyo xidheen oo sanad miisaaneedka 2008 tirsan taariikhda dalka Itoobiya laga fulinayo deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaas oo lagu fulinayo miisaaniyada heer deegaan iyo heer degmo 96 biyo xidheen ayaa isugu jira kuwa waaweyn kuwa dhaxaya kuwa yaryar intaba madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar oo markii uu dhagax dhigay biyo xidheenkani kadib la hadlay shacabka ku dhaqnaa aagaasi ayaa sheegay in sanadkan 2008 tirsan taariikhda dalka Itoobiya muhiimad gaar ah la siinayo qabashada biyaha togogu soo rogan xil roobaadka laagaha iyo waliba kuwa ka soo dhaca buuraha waaweyn ee deegaanka iyadoo si casri ah loo qabanay isla markaasina looga faa'iideysanayo cabida iyo waraabka intaba iyadoo biyo xidheenkani Nagaade weynana uu ka mid yahay 96 biyo xidheen ee la fulinayo sanad miisaaneedkani 2008 dhankooda shacabka ku dhaqan deegaankaasi ayaa bogaadiyay mashruucan biyo xidheenka ee laga fulinayo aagaasi iyagoo intaasi raaciyay inuu yahay mid ay aad ugu baahnaayeen ay uga faa'iideysan doonaan sida ugu haboon intaasi kadib ayaa waxa waftigu soo kicitay dhankaasi iyo degmada Shilaabo oo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar iyo taliyaha ciidamada difaaca qaranka ee Koonfur Bari Itoobiya Lieutenant General Abraham Walda Mariam ay si wada jir u dhagax dhigeen xarun caafimaad oo laga dhisay halkaasi oo ay mushaarkooda ku dhisayaan ciidamada difaaca qaranka ee kiflatoorka 13 ee fadhigoodu yahay Kaalib iyo Shilaabo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar oo ka hadlay munaasabaddan dhagax dhiga ayaa sheegay in ciidamada badbaadada shacabka u horeen naftooda iyo dhiigoodaba ay maanta mushaarkooda ugu deeqayaan si loogu dhiso xarun caafimaad oo looga faa'iideeyo hooyooyinka urka iyo carruurtaba iyadoo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar uga mahad celiyay arrinkan ku dayashada mudan oo uu sheegay in madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya arrinkan uu yahay mid gaasinimo ah loona baahan yahay ciidamadu inay ku sii talaabsadaan mitanka weyn waxa farxadno maanta ciidanka qaranka dhow misraaqis oo Koonfur Bari oo waxa weeyaan oo General Abraham maxaan ku rahay mas'uul ka yahay qaybtiisa waxa weeyaan 13aad asraastanya kiflatoor gaar ahaan Kaalib iyo Shilaabo mataqaana ciidanka makalakaaga jooga mushaarkooda inta ka jireen damooskooda inta ka jireen inay yiraahdaan maxaan ku rahay shacabka Shilaabo waxaan u dhisaynaa waxaan ku rahay iskuul balse laakiin waxaan caafimaadka lagu bedelo health center maadaama iskuulka jiro caafimaadka lagu bedelo fikirkaas aan ku lahayn marka soo inaan ka gudoono ma taliyaha ciidamada difaaca qaranka ee Koonfur Bari Itoobiya Lieutenant General Abraham Walda Mariam ayaa sheegay in ciidamadu ay yihiin wehelkii shacabka ee markasta isla markaana ay diyaar u yihiin in shacabka markasta ka difaacaan wax ka soo lid ku ah nolosha shacabka sidoo kalena ay xaruntani caafimaadka ay tusaale cad u tahay in ciidamada difaaca qaranku ay yihiin weelashii shacabka ዛሬ የመጣነው በዚህ ያለው የመከላከያ ሰራዊት አባሎች ለዚህ ህዝብ ለጤና ጣቢያ ለመስራት እንፈልጋለን ብለው ከደሞዛቸው ያዋጣን እንሰራለን በማለት መሰረተ ድንጋይን እንድናስቀምጥላቸው ጠርተን የመጣን ማንተ halkan waxaanu imanay dhagax dhiga xarun caafimaad oo ay dhisayaan xubnaha ciidamada difaaca qaranka oo mushaarkooda ka dhisaya xaruntan iyaga ayaana noogu wacay inaan ka soo qayb galno oo aanu dhagax dhigno xaruntan hogaaminta ciidanka halkan ku sugan markay fikradda noola yimaadeen runtii aad baan ugu faraxnay ilaa halka ugu dambeysana waan taageeraynaa nabadda hadda jirta si wada jira nafteena ugu horay horumarkana si wada jira ayaan nafteena ugu horaynaa waad mahadsantihiin dhankooda shacabka ku dhaqan aagaasi ayaa bogaadiyay tallaabadan ay qaadeen ciidanka iyagoo cadeeyay inay mar kastaba ciidamadu diyaar u yihiin in hiliyo hoob la garab taagnaadaan shacabkooda tanina ay tahay tusaale cad oo muujinaysa sida ay ciidamada difaaca qaranku ay mar kasta diyaar ugu yihiin inay shacabkooda wax kasta u huraan aad baan ugu faraxsanahay madaxda noo timid maanta waa maalin gaara waa maalin ilaahayna gaarsiiyay kaaligoon maanta ku soo shirnay annaga iyo madaxda kala gadisan ilaahayga na gaarsiiyay baan ugu mahadnaqaynaa Allah inoo siyaadiyo Allahna inoo kadbo madaxdaas hawsha noo qabatay madaxweynaha ciidanka dhammaan waa u mahadnaqaynaa Allah liibaano Allah la jiro waa idin garab taaganahay si gaar ah ugu mahadnaqaynaa hawshan dhagax dhiga ee naloo sameeyay waa waxaan aad ugu faraxsanahay waa waxaan soo dhaweeyay mushaarkooda ay ka jareen waa arrin gaar ah weeye waa arrin dhaxala waa arrin maar gaar ah ku taala waa arrin soo dhawaanaan ku faraxsanahay waa mahadsantihiin jiro jooga ciidamada halyaygu uu watahayga soo galin war hoobaan bislaatiyo habbaad ka hirqaan doontaan ilaahaygi halkaa nagu simo bagiyaha kale